السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة قايا بدن أدين بنادن سلام أيام مربودين كفل جوكتان سيدا الله سعطان بوحانو صعلي برشاد بطنت بيغا وحان صودا ميني أرغومنتي كوبات فافاهنتيس إيو سؤاليس أنا قد المرين أف صومالين كوفسرين أوكي حدا وحان سمينونا كويسكا أرغومنتا كوبات إن شاء الله دوري تبان قيبو كوبين هاي وان وضد المرين سيان وضي حفظينو كدبنا إن شاء الله أرغومنتياش كلاو دمان أيان محالي هذا فرح لقلت دونا مان تو مان على الأنبانتي إن شاء الله داوشوا عنه حنفلاينا وحبدا كفايدي دونتين يوتيوب كا سبسكرايب هلا صار انتو ساري ما بو ساري انت كلنا حد هساران اصحاب كلنا هلو شير غريو لايك دنا هلو قبطو يوتيوب كا هلا بوغدو اوكي Il conducente deve accelerare per sgombrare rapidamente la carreggiata quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada senza cane guida. Avere il conducente idraulico deve accelerare o accelerare a gari per sgombrare si o fare gioda rapidamente si degdega la carreggiata. Quando un pedone qof non vedente con il bastone bianco qof wata o il bucorat attraversa goina la strada wadada senza cane guida asigone ei wadan. Haskegele io qof il bucorwat. La risposta è falsa. Ok? Una zona a traffico limitato è delimitata da oppositi segnali stradali di inizio e di fine. Wuxuu in una zona meel u dhahay traffico limitato oo baabuurta qaar saacadaha qaar laga xiriir in la galo. È delimitata waxaa lagu calaamadeeyay u dhahay da oppositi segnali calaamada ama signala stradali oo wadada ku dhadhegan di inizio meesha ay ka bilaabanayso e di fine e meesha ay ku dhamaanayso. La risposta è vera, ok? L'autocaravan Comber sono veicoli attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ideologico di persone. Le autocaravan Comber baabuurta dalxiiska lagu aado sono waxaa waay dhahay veicoli baabuur attrezzati loogu sameeyo ama loo sharciyey permanentemente weligood iyo allahooda ama forever per essere si ay u ahaadaan adibiti in loo isticmaalo al trasporto inay qaadaan ideologiyo ama ay kireestaan di persone dadka. La risposta è vera, ok? L'isola di traffico è posto al di fuori della strada. Isola di traffico è posta waxay ku taalaa al di fuori meel ka baxsan della strada. Falso waa. Al centro della carreggiata è ku taalaa, ok? Alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari occorre preparare e frenare nel caso in cui dei bambini attraversino improvvisamente la strada. Wuxuu yiri alla guida di un veicolo markaan wadna gaari in vicinanza aan u dhownahay di una piazzola di fermata meel uu istaagay di autobus baska per scolari kaasoo qaadaya ardayda. Occorre waxay noqonaysaa prepararsi inaan isku diyaarino a frenare inaan fariin qabno nel caso lacalla yiri in cui haddii ay dhacdo dhahay dei bambini ilmaha attraversino ay u gooyaan improvvisamente si kadisa la strada wadada. La risposta è vera perché dobbiamo prepararsi. La corsia può essere destinata alla normale marcia dei veicoli. Wuxuu yiri la corsada può essere waxay noqon kartaa destinata mid u qaabilsan alla normale sida caadiga marcha dei veicoli. Vero waay perché corsada baabuurta lay martaba. L'intersezione livelli sfalsati è un incrocio a raso fra una strada e i binari del tram. I binari del treno. Falso. L'intersezione sfalsati waxaa waay wado oo dhowr wado isdul maray China oo kale ba wada hoostaada maraysa ada koraa maray midabkaasi koraysa camal soo taasaa lahaa. laakiin arraso waa wuxuu yiri livello sfalsati un incrocio arraso wado oo siman u dhahay. Falso waa perché wax badan oo isku qasay, ok? La strada non comprende la banchina o dai le banchine. La strada wadadu yiri non comprende kamid maaha le banchinayaasha. Falso waa perché le banchine sono fa parte della strada, ok? Lakin hadduu ku dhahan fa parte della carreggiata. Falso è. Le autocaravan sono soggetti a revisione ogni 5 anni. Autocaravan yiri sono soggetti waxaa qabanaya yiri soggetti a revisione in dib u eegid lagu sameeyo ogni 5 anni 5 sano kadib. Falso è perché prima marka uu cusub yahay
waa la immatricolazione kadibna 4 sano ka soo wareegayso wixii ka dambeeyay 2 sano waa okay quindi 5 anni falso. In un passaggio a livello si può trovare le croci di Sant'Andrea, vero? Perché passaggio a livello Sant'Andrea, le barriere, semipariere, le luci rosse, waxaasoo dhan waa la kulmaysa, okay? Way ku yaali karaan. La carreggiata non comprende i marciapiedi. Carreggiatadu yidhi non comprende ka mid maaha i marciapiedi vero waay perché carreggiatada iyo marciapiedi waa laba qayb ay kala yihiin, okay? Carreggiatada iyo marciapiedi laba qayb waay laakiin marciapiedadu waxay ka mid tahay istraadaha guud ahaan. Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole. Con la patente di categoria A yidhi haddaan haysan laysanka nooca A si possono guidare waxaan wadi karnaa tutte le macchine agricole dhammaan baabuurta beeraha u dhahay. No. La strada rappresentata è composta da 3 corsie per ogni senso di marcia. Ogni senso di marcia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vero waay, ok? La competizione sportivi con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione. La competizione tartanku yiri ama xifaaltanka sportivi oo ciyaar ahaan mise tartan adiga la samaynayo con i veicoli oo baabuurta macnaha dad baabuurta tartanku galay marka jirno su aree pubbliche meelaha dadka ay ku badan yihiin sono consentite waa la ogol yahay yiri senza autorizzazione xataa hadday dowladda aysan ogoleen ay u sharciyeen falso ay lama ogolo. Okay? Le autovetture sono soggetti a revisione periodica. Autovetturiyaashu sono soggetti waxaa qabanayo revisione periodica in dib u eegid lagu sameeyo, ok? La prima dopo 4 anni, successivamente ogni 2 anni, tutti i veicoli. In vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve arrestarsi se il pedone che attraversa è munito di bastone bianco rosso deve solo rallentare se invece è munito di bastone bianco falso, perché in vicinanza markaan ku dhownayo di un attraversamento meel ay ka goynayaan pedonale oo dadka il conducente idraulico deve arrestare waa inuu istaagaa se il pedone haddii uu qofku yiri che attraversa wadada goynaya è munito uu leeyahay ama uu wato di bastone bianco ulbakoora cad rosso cadaan iyo guduud ulbakoora isku ah hadduu wato deve solo yiri waa inuu keliya uu dhahay rallentare uu qaboojiyaa se invece haddii uu dhahay saasay wax ka duwan tahay munito di un bastone bianco haddii uu wato ulbakoora cad bes waa inuu rallenteeyaa uusan istaagin laakiin haddii guduud iyo macnaha una katsaata waa inbaad qofka wadada goynaya haddii ushuu wato guduud iyo caddaan isku jira ahayn ha ka istaagin uu dhahay haddii caddaan keliya ay tahayna ka istaag cosa c'entra falso. Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate, vero? Le macchine operatrici macchinooyinka operatricida possono waxay noqon karaan essere semoventi kuwa motor ku shaqeeya oo ayaga isjiida o trainate ama kuwa la jiido dhahay vero waay. Entrando in un centro abitato bisogna considerare che è possibile sostare in corrispondenza di incrocio non regolati. Falso waay sababtaa wuxuu yidhi entrando marka aan galayno in un centro abitato meelaha la degan yahay bisogna waxaa la rabaa considerare inaan ku xisaabtanno che è possibile waxaa suurtagala macnaha macquula ama la ogol yahay ama samayn karnaa sostare inaan dhigno in corrispondenza meeshuu yidhi di incrocio oo wadada isgoos dhexdiisa corrispondenza waxaa la hadda calaamadan meesha vida ay ku qoran tahay inta haddaan ka joogo waxaa waaye hortayda waay precede waay moogtahay laakiin saan markaa u dultaaganay corrispondenza alla okay lama istaagi karo marka meel isgoos oo baabuur marayo baabuurta isku gogoynayso baabuur lama dhigi karo falso. Alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari occorre suonare per invitare i bambini che attraversano sulla striscia a dare la precedenza. Waxaa yidhi alla guida di un veicolo marka aan wadna gaari in vicinanza oona ku dhownahay di una piazzola di fermata meel uu istaaga meel oo maxaa la yidhahda fermata ama la istaaga di autobus basaska istaagayaan berescolari basaskaas oo u shaqeeya ardayda mise iskuulka u qaada ama ka keena oo kore waxay noqonaysaa yidhi sonare inaan hoonka yerino sonare hoona la iska barta per evitare si aan uga fogaan i bambini ilmaha u dhahay per invitare si aan
ilmaha macnaha ugu digno mise aan ugu wacyigelino che attraversano waddada goynaya sulla striscia oo waddada goynaya macnaha si aan u ogeysiino mise aan u xusuusino ilmaha waddada goynaya si ay mudnaanta noo siiyaan falso waay okay falso gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno 4 ruote compresa quelle senza motore gli autoveicoli sono waxa way tutti dhammaan i veicoli baabuurta con almeno ugu yaraan le 4 ruote 4 tayr compressi markii lagu daro quelli senza motore hatta kuwa baabuurta ku xirnaan falso autoveicolo almeno 4 ruote con motore vai senza motore falso nei centri abitati su una stessa corsia possono circolare affiancati 2 motocicli nei centri abitati meelaha la degan yahay su una stessa corsia hal corso u dhahay possono circolare waxaa isla mari kara hal mar affiancati ayagoo isdhinac soconay 2 motocicli labo moto falso waay hal corso laislama gali karo okay capite i motocicli è un qualunque veicolo a 2 rotte motociclo waxaa waay u dhahay qualunque veicolo gaari walbu yiri oo 2 rotte laba tayr leh falso waay La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada. Corsada accelerazione serve waxay qaabilsan tahay ad entrare inaan ka galno correttamente si sax ah in autostrada laga galaa verwa. Il conducente di un motociclo può fare lo slalom tra i veicoli fermi e al semaforo slalom. Slalom taasaa ka dhex arkaysaa. Il conducente idraulico di un motociclo o wada motociclo può fare wuxuu samayn karaa slalom no lo slalom u dhahay macnaha asoo dhex goynayo kala saan ya maxaa ka timay ka timaal ciyaarayo saan uu dhex goyn karaa wiri tara intuu dhexaysa vehicle fermi baabuurta taagan iyo semaforo falso waaye in un passaggio a livello si possono trovare le luci gialle lampeggianti wuxuu yiri passaggio a livello waxaan ka arki karnaa nal o gialla lampeggiainaya la luce rossa why not la luce gialla secondo me ok passaggio a livello con luci rosse però non lo so non lo ricordo un incidente anche a bassa velocità potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni ciclisti o motociclisti se coinvolti wuxuu yiri un incidente shil u dhacay anke xataa uu yiri bassa velocità haddii uu shil dhaca xataa baabuurta isku dhacday speedkooda ama xawaarahooda mid gaaban u ahaa potrebbe wuxuu noqon karaa creare mid saameynaya ama keenaya gravi problem ama halis problemi dhibaatooyin fisici weji ahaan ama qaab ahaan ama jir ahaan bedoni dadku dhahay ciclisti dadka oo baaskiilada wato motociclisti sida kuwa mootooyinku wato se coinvolti haddayba ka qayb leeyihiin oo dadka dhibaato sameeya oo isku dhacay hadday ka mid yihiin dhibaato badan ayay kala kulmi karaan oo dhahay vero la strada rappresentata è composta da 8 carreggiate secondo voi 8 carreggiate mi ama sitre kore allora labadan corso cagaarkan dhinacan ka jiro hal carreggiato waay labadan caws cagaarkan labadan oo isbarti traffic dhexdoodana hal carreggiato waay intana hal carreggiato waay marka 8 carreggiate falso waay invece wuxuu yahay 8 corsia 1 2 3 4 5 6 7 8 corso waay contrario waay 8 carreggiato waay u dhahay falso waay yani lingaadeen okay la strada rappresentata è composta a 3 carreggiate haddeertan uu saxan yahay la strada wadada rappresentata oo meesha ku taal è composta waxay ka kooban tahay da 3 carreggiate 3 carreggiate 1 2 3 vero waay okay Quando si viaggia in file con altri veicoli bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza, ugualmente falso, secondo me, davvero ugualmente. Ugualmente, non lo ricordo, ugualmente, tan in qaldi doonaa quando si viaggia marka aan daba socono altri veicoli bisogna waxaa loo baahan mantenere inaan ku ilaalino ugualmente si wada sinnaana la distanza di sicurezza. Mettiamo vero però può essere falso. In vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve accelerare quel tanto che basta per passare davanti
al pedone che attraversa wuxuu yiri in vicinanza markaan ku dhownahay un attraversamento pedonale meelaha dadka ay ka goynayaan il conducente daraawalka deve accelerare waa inuu gaariga shalareeyaa uu yiri quel tanto si kastay ahaataba che basta waxaa nugu filan per passare inaan marnuu dhahay davanti hortooda al pedone dadka hortooda che attraversa laamiga goynaya macnaha markaan aragno dad laamiga goynaya oo kale anigu waa shalaraynaa waa gaariga shalaraynaynaa muhiimadeena waxaa waye bas inaan ninkaas xoog ku hormarno falsissimo casharkeen waan dhamaynay hadda waxaan fiirinaynaa natiijada insha allah waxaan filayaa inaan wax badan ka faa'iideen haddaan waxaan qaladna xataa non fa niente perché idinku waa xasuusnaan doontiin waxaan qaladnay okay sida inay muuqato hal su-aalaan qaladnay waxaan filayaa su-aashaas inay tahay tii koowaad ama tan 29aad haddaan fiirinaynaa su-aasha 8aad waay maba ahaba 20 la strada non comprende le banchi la strada aheyd la strada non comprende le banchine falsaan dhahay miya okay inta kale way saxan yihiin su-aasha kale maxayd una zona traffic limitata ma tan il conducente deve accelerare e sgombrare rapidamente falso waay 29 akhrinayna 30 quando si viaggia in fila con altri veicoli bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza. Ok, casharkan waa casharkeeni koowaad argumenteeni koowaad qaybtiisi 6aad insha allah waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iideen horumar wacan guuleysta dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu